بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون لنا من كل مكان. دمان دتك الصوماليات محل كان إجدا وناي وحنكو سلام يا مركو رئيس سلامة إسلامك مرلبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن جعل يسدي إن لو داغو ولا لهيك صوماليات شعب كصوماليات iyo madaxda qarankaba fiidowgan aan hadda duubayo oo igu kaliftay waxyaabaha soo socda oo dhacay waxaan la kulmay saakay dhacdo aad la yaab leh waxaan ka baxay horta awala marka ugu horeysa anigu waxaan ahay Sheikh Abdulqaadir Sheikh Maxamed Sheikh Abuukar Sheikh Soomow afeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed waxaan ka baxay saakay oo taariikhdu ay tahay 18ka bisha October 2019 xafiiskayga waxaan ku yaal isla gurigayga waxaan u socday xaflad nikaaxa oo ka dhacaysay hotel Safari oo aan ku casuuna waxaan maray wadada waxaan ku tagay iskooyska Sanca halkaasi waxaan kula kulmay sida caadada ay tahay booliska Soomaaliyeed ee halkaas Timbotiga oo u yilay markaan tagay waan soo degday waxaan tusiyay idikaarkayga amba aqoonsigayga وانا سو شاغي dadkii ma joogan waa soo istaageen way islaameen oo shakhso way aal wadayri sargaalkii wuxuu rimaaya ma ku sii deynaayo maxaa dhacay ee digaar wax ku deyma adna ku deyma cid kale wuxuu yaa wax dhaar ari adaa taqaanidow hadda aqoonsi kuma dhino ee digaarkeen ku suusiye dadka inta joogo dhan ay wada yaqaan macalaskata qaar koor ay yaqaan u jeeda maxaa dhacay way iska laabay hor waa laabday waxaan maray wadada dhinaca kale hadana u laabday bal jirdiinkaan tagay markaan degde sargaalkii afarta lagu fiiqaalay halkaas waa ka jooga meel gadaal aan u tagay sidii kii kale markaan u tagoon salaamay oo edikaarka u taagay wuxuu edikaar ma shaqeynaa wadada lagu mari maayo saayela edikaarka ay dadka mas'uuliyadda ay shaqeyneen waa la qeysa hor liqo u dhahay jidkana mari maysid waxa la yaab leh marka anigoo hadda dadka askartu boqolkiiba 80 yaqaaneen bulshada ku nool magaalada Muqdisho ay aad ii wada garanayaan intoora badan haddii ay tan igu dhacday nikaax u socday ka soo laabtay waxaan tusiyay waxa ku dhici kara shacabka caadiga ah ee jidka maraya dhibaatada ku dhici karta sid xal arintaas loogu helo waxaan go'aansaday in aan la xiriiro taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Abdi Xasan waa wacay igama qaban fariin qoraal ayaan u diray oo uu qoray wixii dhacay aan u sheekaynayo ima soo jawaabin markaan ku celiyay waa iga qabtay markaan iga qabtay waa Sheikh Soomow fariiq qoraalkayga ma waa heshay arintaas aan igu dhacday halkaas aan u socdaa wuxuu ugu dhahay waxa la yaabay oo fadiiciza igu naqday oo ay tahay inaan qof kasta inaan fiidowgan soo duubo igu kalifay ayuu dhahay wuxuu Sheikh Soomow ma waxaad ii soo wacaysaa anoo taliyaha aniga oo ah taliyaha ciidanka Soomaaliyeed jidka booliska iga xirtay telefoonkan waa igu damiyay waxaan is weydiiyay haddii booliski jidki inuu amnigiisa suga dadkii la yaqiino oo aan shabaab ahayn oo aan burcad ahayn oo mas'uul ah jidka laga celinayo waxa ila socdo ogow hadday waxa aniga staafkayga darawalkayga kulli waa boolis waxa ila socdo ciidankii booliska waxa ciidaha waa boolis waxa aan u dacwaa taliyay booliska waxa idhahay aniga jidlii soo sheegay waa Sheikh Soomow waa taliyay booliska shacabkina sidaas loo yahay hadda intaas markaan arkay waxaan jeclaysnay in aan fiidowgan bal la wadaago bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan baaq ugu diro madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada mudane Umar Maxamuud Umar Firs waxaan idin leeyahay madaxay shacabku waa cadaaban yahay حاجة أمنينا دبعتو uga jira حاجة sugida amniga dibaato uga jira runinka sheegin beenba u sheega hadii arugo oo intaas itaqaan jidka aan mari waayay dadku iyo umar ma laga guura magaalada noo sheeg hadii magaalada laga guuray hadii kale waxaan rabaa in maxkamad la geeyo taliyaha ciidanka booliska loo yeero cadaalada horgeeyo fariintii aan qoray nawahaya waxaan rabaa saraakiisha sameysay in cadaalada la horgeeyo waxaan rabaa oo cusanayaa in amniga la sugo oo shacabka iyo dawladdu iska kaashadaan shacabka inaan amniga wax lagu waxyeeleen
waxaan u baahannahay dowladnimo waxaanan deeqda dowladnimo waxaanan deeqda qarannimo nama deeqdo isbaaro cusub haddii ciidankii booliska ee aniga ila socday ee amnigayga sugaayay iyo kuwii aan u tago amnigayga inay sugaan ahayd wadadii aanan u mari karin oo aan nikaax aan u socono gabadh aan nikaaxi laha aanan nikaaxi karin xaggee aadagnaa shacabku xaggoo aadaya madaxweynaha waxaa ka rabaa arrintaas iyo ra-iisul wasaaruhuba inay si degdeg ah jawaab looga helo taliyaha ciidanka booliskana waxaan codsanayaa in cadaaladda sidaas inta uu sameeyo sharcigu wuxuu ka qaba in lagu qaado waa maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu